waxa ku dhashay magaalada Caynaba ee gobolka Saraar 1959 waxa uu waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ka bilaabay sida malcaamada Quraanka isla magaalada Caynaba ee gobolka Saraar intaas kadib waxa uu soo wareegay ugana soo gudbay magaalada Burco ee gobolka Togdheer halkaas oo ka galay dugsiga dhexe kuna dhamaystay dugsiga Sheekh Yuusuf Kaynuun ee magaalada Burco dib waxa uu ka sii socday geedigiisii waxbarasho waxaana uu gudbay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas oo ka bilaabay dugsiga sare halka uu ku dhamaystay dugsiga sare dugsiga General Daawud ee magaalada Muqdisho intaas kadib sanadii 1975 oo ahayd markii uu soo galay garoomada caalamiga halkaas oo uu ka bilaabay ciyaaraha fudud oo uu heer caalami ka gaadhay sida orodada 1977 waxa uu ka mid noqday xulkii qaranka Soomaaliya isla sanadii 1982 waxa loo doortay waxaana uu ka mid noqday ama loo doortay hogaamiyihii tanka iyo kooxda Afrika ee matalaysay ciyaaraha fudud ee Olympiga jaamaca waxa uu tagay wadanka Mareykanka halkaas oo uu ka helay deeq waxbarasho waxa uu ka bilaabay kuna dhamaystay waxbarashadiisii heer jaamacadeed George Wilson ee wadanka Mareykanka ee gobolka Virginia waxa uu ku guuleystay guulo taariikhiya oo galay taariikhda caalamiga marka laga hadlayo Soomaalida jaamac waa rag ay ku faanta Soomaali isagoo ku guuleystay abaalmarino kala duwan oo waaweyn waxa uu tababaray 36 ciyaaryahan oo qaaday dunida orodada waxa kamid ahaa Cabdi Bila Cabdi oo ay in badan Soomaalidu ku faani jirtay 13 rikood dunida 4 Olympic oo uu qaaday waxa kale oo loo magacaabay macallinkii ciyaaraha dalka Qatar waxa uu ku guuleystay inuu dhalinyaro badan tababaro macalinka adduunka 2008 waxa loo doortay coach of the year Mohamed ibn Rashid waxaanu guddoonsiiyay bilada ugu qaalisan waa isla 2011 waxa uu Mohamed ibn Rashid uu aqoonsaday ama uu doortay shakhsiga ugu qiimaha badnaa sportska Imaaraat waxa uu kala gacan qabtay kumanaan dhalinyaro Soomaaliland marka laga hadlayo jaamac waxa uu gashaday maalgashiyo caalamiya isagoo ku dhiiraday ganacsiyaani ku dhiiranin dadka qurba joogta ama wadanka ku soo noqday tuulooyin badan oo aan mararka qaar kood laga heli jirin hodheelo la seexdo iyo meelo wax laga cuno bulshada taraasidka ah ayuu ka hirgeliyay gobolka Saraar ba ka mid ah magaalada madaxdiisa Caynaba hodheelka Caynaba waridaad oo ah bartamaha Soomaaliland kala badha halkaas uu ka hirgeliyay hodheelo casriya isla gobolka Togdheer oo ka wado moolal caalamiya magaalada Hargeysa oo aan ka badnayn waxa kale oo ku jira haweenka Caynaba garoonka ugu weyn magaalada Caynaba oo hirgeliyay Hargeysana waxa uu ka wada garoomo heer caalamiya jaamac Maxamuud Aadan jaamac Qaraacin oo barnaamijka martin ugu ah waraysigan gaarkaana siinaya telefishinka Ariel jaamac ku soo dhaw barnaamijka mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo dad maasantay Zakariya Ariel TV aduguba channelka naga soo boqotay dalka Ali Jirde adeed baan ka mahadcelinayaa waana dhawahay xilligii aad garoomada soo gashay intii garoomada aad ku guda jirtay adigoo tafaasiil naga siinaya bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aad maasantahay halka waxa in badan baan maqlaynay qafir meehi niyar meehi aad iyo aad ba alxamdulillah rabbil caalamiin xagga dad badan baa jir magacayga iyo muuqa iyo magaca isu qaban waayo taan waxa keentay horta qofku soo dhowrayo si uu soo nafsi u shaqeeyo weeye marka anigu wali fiilkan ku bilaabay garoonka baan wali ku dhex jiraa kama bixin balwadahan soo jeedka iyo maandoorska waxaana kuma dhex jiro ma garanaysa alxamdulillah ilaahay baa iga xijaabay taas waa taas ciyaar waqti aad dheer ku jiray 75kii ayaan ku soo beeray ciyaaraha gobolka Togdheer magaalada Burco oo ardayka ka badana lacagta marka hal jeer reserve baa la gelin jiray inta badan dhalinyaro badan oo ku dawaa jirnay aan asxaabnahay oo kamid yahay Maxamuud Taniyalle oo ka mid yahay Aljaamac Galaal ayaa inil coach oo ordeen han jiray Maxamuud Axmed Buraale هذا الثلاث سنوات جوجا أي عادي هذا يقول رجلي لا محرستي على مسي فرح رجلي ضد بدن با هذا يقول رجلي ضد بدن هل كمان كفلا بقى عياره وردده هذا يقول عيارتوية أي جرامة كتير بعد هذا نسبة دشي معلن والله باش قوم مركب قفك سبورتس كا ودبده كتشوجو قفك أنا هين سبورتس أكو عدك تاين وكلا سعره إن لبضو بخبرت بوبهايين حكوا يقول لي جامع إن تتكبح هذا جرامة إن تسكبت دشوا معلن أما تببره لأن يرفع بدنا تصو سرتيد السؤال وناكسن زكريا مركان يرتوغ ها waxaan jeclaa inaan noqdo yartooga fi aan dunida xagga orodada marka ilaahay ma qadarin gool fiican waan ka keenay laakiin halkaan doonay kama gaadhin waxaan ahay jeer dadkan raba wuxuu u soo jeestaan ka mid dhaliyo dabadna waxaan hindisay aan dareen biday waan isla waxaad ka dhown laga coaching
tabarnimada dibadana dad badan baa igu dhiirigeliyey arrinkaygii iyo toodii markaan isla qaadanina waan bilaabay waxaan kasoo bilaabay dugsi sare waxaan kasoo bilaabay jaamacad ciyaartooyga dunida uga weynaa ilaa aan gaarsiiyey 36 ciyaartooyga dunida qaaday 13 world record 4 Olympic champion oo magaranaysaa dee wax aad iyo aad runtii nafteyda raali gelisay aan shaqadii aan u go'doomay ciyaartooy waaweyn baad xustay marka laga hadlayo dunida caanka ah xagga Olympiga kooba ugu waaweyn coaching markaan bilaabay yaraantii high school markaan bilaabay dadna Cabdi Bilay dadka aad ugu dhiirigeliyay yiri waa coach garay waa coach baad noqon kartaa caalamiya chance ka horeysay isagaan coach gareeyay aan khibrad badan lahayn ninkaasna waxaan arday aad orodka hibo siiyay waa kii dunida meesha ugu sarreysay ka gaadhay dadna ciyaartooy badan oo kale oo kamid Makhloufi oo Algeria ninka Olympic qaaday 2012 London 500 mitir gabadha la Gansabad Dibaaba Ethiopianka oo iyana 7 world record leh oo qaaday world championship 2015 ayaa la Sulaymaan oo Djibouti oo isna qaaday 500 dunida iyo Abubakar Kaki oo Suudaani ah oo isaguna ahaa 800 ninkii qaaday 2 jeer dunida ciyaartooyga fara badan yihiin laakiin kuwaas waa rag ugu cuslaabay kamid ahaayeen maalgashi aad u badan baad gelisay jaamac adigoo qurba joogta kamid ah dalkii baad ku soo dhiiratay walibana waxa intaas si dheer tuulooyin badan inaad maalgashi gelisay dadku isweydiinayaan tuulada talo jaamac muxuu ka faa'iideeyaa maxaa uga soo baxaya marka laga hadlayo imka Caynabo kale waa su'aal wanaagsan hal jeer dad badan baa yiraahdaa maxaad Caynabo iyo Waridaad iyo waxa soo lacag u gelisay laakiin haddii qof walba uu caasimada kale dhiso dalkii horumarkiisa uu yaraanaya gaaladan waxay tahay charity begins at home qofka meeshuu ku dhashay ku soo barbaaray inuu wax dib ugu celiyaa magaalada waan imi iyadoo Caynabo iyadoo aan hodheelay meel saxday meel wax la cuno lahayn dabadna meel aad fog ayaan casho doon jirnay magaalada og 30 kilomitir meelahaas dhow mashin laatan wadna markaas aan siray magaalada hodheel iyo maxaa meel saxdaba wadna halka qofkii marayaaba waxba ku cunaa wasixda annaga fasaxo tirna magaaladii waxa korba soo qaaday shaqo abuuris baa ka bilaabatay Waridaadna location ahaan strategic waxay meel bartamaha Soomaaliland oo dhan marka iskuul baan dhisay masaajid dabadna fikradaas waxa dhalatay haddana halkan hodheelka aan muxuu ahaa aan ka sameeyo waayo meel xoolaad weeyaan ariga iyo xoolaha iyo geela iyo waxaasna waa jecelahay dabadna waxa sir meeshan waaba retire marka ciyaaraha ka fariisato malaba meelad geela iyo ariga iyo ay ku joogi karaan adnaad dadkuna ay maartay markay ka helaan waxay ka cunaan meel saxdaanba alxamdulillah magaalooyinka waa naga barco dhisayno waa naga arkaysa wax ka dhisayno marka taasina waa okay laakiin taasaan isku bilaab marka hore way noo halkaas ka soo bilawnay marka hore iyadana marka dadka waxaan ku dhiirigelinaya laftooda inay tuulooyinka ay ka yimaadeen ku soo koreen inay laawinayaan caasimada kala sugan qofkii chance haysta uu shaqo abuuris iyo hantidiisa oo geliyo meelaha u baahan in kor loo soo qaado garoonka dhalinyarada 3 suduwe oo Saraar suduwaha ciyaaraha Xuseen iyo suduwaha qarshaynta shaqaalaha Axmed Mubaarak Axmed Warsame iyo Faisal Famlo suduwaha beeraha gobolka ayaa fikrada ay u dhaliyay marka hore magaalada wax baantay garoon cagaaran dibadna ku soo dhaweeyay fikradaas magaaladana way deegaanka ayaa meeyarkii shaqeeyay iyo tiimkiisa siiyay alxamdulillah hadda lagu ciyaaraa dhalinyaro badan baa intaan fasax dirta joogay aan ku ciyaarsan jirnay marka laga hadlayo macalinimada iyo ciyaartoynimada waxa ku dheer waxa tahay abwaan waxa jira marka suugaan badan oo aad samaysay qaarkood ay fanaaniintu ku luuqeeyaan adiga qudhaado qaar aad ku luuqeysay baa jiro wadanaya oo markii dadku maqlaan oranayaan jaamac isagoo ciyaartooy haddana ma garanaysaa waa nin shaqo badan isku haya la isweydiinayo jaamac waxa jira heeso aad samaysay adigu qaarkood aad qaaday kuwa wax ma looga taaban karaysaa anigu horta abwaan meehi fanaan meehi laakiin waan iska jecelahay laxmada iyo waxaan ku wanaagsanahay marka heestan wadaniidana waxay u dhalatay anigoo diyaarad saaran oo flight aad u foga dadna markaad aad la sheekaysto ciyaad la shooydo ayay marka qaarkood aad dareemaysaa inaad qiimo ku leedahay dalkaaga dadna heesta saasay igu soo dhacday dulsaar baa la yidhahdaa qofka waxay inuu qofku dalkiisa iyo dadkiisa uu qiimo ku leeyahay kuwa kale hees badan ma sameeyo anigu laxmadan baan ay fudud marka fanaaniin badan baa qaaday heesaa qaarkood aan laxmay waxaa ka mid ah Aragsan Cabdinaasir Macalin Ciidiid heesta laxankeeda aad baan u jecelahay ilaa dhowr jeer baan marba dhageystaan laxankan mal adiga maaha laxan kalena waxa heesta kalena waxa Ikraan Caraale heesta qaadaydna baa jirta aad u macaan iyaduna oo 2018 ka qaaday heesta badan baa jirta laakiin heesta qof baa garanaysaa najax baa heesta qaaday la booliyo iyaduna
marka laxmad qofku markuu la xisbaan wax soo waa ku dambeeyo hada kugu fiican laakiin marka sirrigiisa hadana wisu kale dareenkaasi magarasa ayaa kala jaada marka taas ogaanta anigu taas kaliyan qaaday kuwa aysan qaado diyaan soo bixin ma jirin laakiin officially taasun baa soo baxdaan siro kaftana aniga saxardiid maxamed saxardiid SMS aanu si kaftana dibadda markii dambe intuu hees ka dhigay dibadna soo galiyay YouTube-ka dibadna la soo diray iyadoo aan qaadayo meel walba maraysa marka interesting bay dalkaygiyo nadaayinka iskale warbiyo dagaalada shisheeye ilaahay guma daray oo ilaahay guma daray dadana lixdan baan jiro dunida meelaanan marin ma jiro dacalada aduun dadana lixdan baan jiro dunida meelaanan marin ma jiro dacalada aduun doontaba ku hay magaca doontaba lahow xilka doontaba ku hay magaca doontaba lahow waxaa jira mar baa jirtay Barcelona lagu xidhay Soomaalida iyo warbaahinta caalamku ay aad arrinka uga hadleen arrinka ma noo faahfaahin karaysaa sida uu dhacay iyo waxyaabaha la xidhiidhay wadagtahay horta qofku markuu goolaha gaadho cadawga soo badnaanaya habeen baa jirtay 3 ciyaartooy aan watay isla habeen ay 3 rikoor dunida jabiyeen 13 rikoor marka coach kaliya intaas sameeya dadka dee walagu daba kacaya cadawga badnaanaya nin madooba tahay Afrikaan baa tahay badnaankan waxa waxba sii ciyaartooyga waayo ma dhici karto dee 36 habeen 36 ciyaartooy dunida qaaday ama 3 rikoor habeen kaliya dhacay taariikhda kama dhicin dunida adigu marka ciyaartooy fara badan 9 dala oo handheer ku joogno ayaan la soo weeraray booliis iyo qodan baadha dawooyinka waxaasana soo weeraray garoonkii iyo hoteelkii waa la baaray waxa nin Sacuudiga la shaqeeya ayaa laga helay dawooyinkii mamnuuc ahaa aniga qolkayga waxba laga helay wax mamnuuc ah fitamiinska caadi ah yaalay waxa la yiri hoteelkan oo dhan wax ka mas'uula jaamac maadaama ay tabarka la sameeyaan waxaan xidhnaa 4 saacadood dibadna waa tii aan ka soo baxay keeskina ilaamka noo socdaa iyagu waxay doonayeen la waleysiyaan muddo markay ka suurtay laakiin anaguna waan shaqaynay iyaguna waxay leeyihiin hoteelka waxa jooga maadaama ay tabarka la sameeyeen isaga ka mas'uula ima keeskuna noo socdaa waana wax caadi ah oo nature ah oo qofku markuu meel gaaro dee hada jira wad khasab wad carqalad la kulmaysaa marka qofku islaam yahay waa inuu ku qancaa wixii la kulma marnasa soo waajaha laakiin xaqiiqadu baa soo baxaysa markaana taas ahayd waxaan uga mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo muslimku wasta ay ku kaceen berigi ay u soo duceynayeen Ramadaan bay ahayd meel walba laga soo xiriiray aad iyo aad baan ayaan mahad celinayaa kii ku farxayana dee waa kulli qof aan garanaysaa ama xaasan ama xiqda yeeshay laakiin aad iyo aad baan guud ahaan ummadda meel kasta joogaan islaamka ama Soomaalidu way badnayd ayaan mahad celinayaa arrintaas ay isu garab taageen Facebook noqotay social media noqotay aad bay support gareeyeen ugu dambeyntii goormaad isleedahay ciyaaraha nooc kasta ha noqoto ama tababare intaba aad isleedahay maanta heer waad ka gaadhay ka fadhiiso ama iska taagare ma kugu jirta fikirkaasi fikirkaasi already waxa iska taag baa marad iska ahay marka darto waska mala ama sanadkii u dambeeyay ama sanadkii ama 2 sano u dambeeyay ku jira darto waayo waxaan garoonka dhex tagnaa ilaa muddo 45 sano baan garoon dhex joogay umar ma waxay ugu hor dambeeyay jiraan waayo intii ugu sarreysana ka gaaro dunida la doori coach ku fiicnaa imkan wali waan ku dhex jiraa laakiin hadda waxaan ku jira waqti xilliga gabagabada waxaan jeclahay dalka ku soo noqdo iska dego geelayga iska maalo ariga raaco gobolada marba meel dalxiis u dhex maro way dalku dalxiiska dadku waxa yaqaaneen dibadaha tagaan meel fog tagaan laakiin dalkeena laftiisa heesba waxa baa jiray arloon jiray dalkeena nimca fadhida laakiin waxma dadkeena waxa jiray siyaasaddu ku mashquuleen iyo qabaayil waana wax laga naxorantii marka maalin walba la yiraahdo waxa saastili halkaas aad ka dhacay ganacsi aad iyo aad bay qofkii dimirkiisu nool yahay u dhibaysaa dadna waxba ka dhigtay baac mushtar runtii laakiin anigu waxaan jeclahay dalkayga soo noqdo ma tababarto maadaama ciyaartooy badan aad gacanta ku haysay
aad fiilkiina ka dhex baxayso boos weyn banaynaysid ma jira qof maslada maanta qof baa buuxin karaya ama ha noqoto orodadii ama ha noqoto tababarikii ciyaartoy badan baa ila shaqayn jiray makantan qadar joogay iyo duwaa marayay cabdibilo kale wuu ila shaqaynayay walaalkay ibraahim maxamuud aadan baa ila shaqaynayay hadda inankayga yarkayga ayman inkastoo aad u da'yar yahay isaga haddeerta kooxdii hayo oo la jooga muxuu ahaa Spain iyo France ninka la farxaan oo isna muxuu ahaa haddeerta kooxaha qaarkood noo tababarsana waa jiraa haddeerta ayman oo kale aad iyo aad buu ugu soo jeedaa inuu noqdo maalinta waxay ugu waan ku bedelayaa waan ka adagaya iga bax fiilka marka waxaan ku weynayaa kugu sii habsada buug marka insha allah ilaahay hadduu tabantaabiyo waxaan filayaa inuu isaguna noqonayo badiilkaygii bedel lahaa oo garanaysaa dee coach caalamiya waynu bahanay coach caalamiya ciyaartoy badan oo caalamiya inuu dalkeenu leeyahay dadkeenu leeyahay oo Mo Faarax kamid yahay Cabdiraxmaan kamid yahay Cabdibila kamid ahaa oo Cabdi Nagay kamid yahay oo kamid yahay dhalinyaro fara badan oo dibadaha kala warda Yurubtaas Maxamed Axmed kamid yahay Canada way buuxaan marka كل عدوى كسب بحس كوتشي نقدام يمكن أميرة وأنكو هاي نايلا أنت أصلين هاي وكانوا ورجع حلك. dadkastoo muuqaaga iyo magacaaga garanaysa ama marunku maqashay fariinteed kaga tagayso iyo message-ka inuu dirayno aad iyo aad baan dhammaan uga mahad celinaya intii muuqayga ma garanaysa ee support garaysa ee dhiirigelisa hadday tahay xagga hantida iyo hadday tahay xagga ciyaaraha goolahan gaarnay dad badan baa hadii jeer la soo xiriira dadkana waxaan leeyahay siyaasadda lagu mashquulay hal la kala yareeyo qof waliba wuxuu ku naasay yahay doonto kii ciyaaraha koosan ciyaaraysa doonto kii muxuu ahaayeen baamishka fiican baamishka qabto kii xoolaha kuna saxo laakiin hadii umad wada siyaasi noqoto madaxa la isla gelaya sida ma ka dirto jirto marka dadku qof waliba wuxuu ku naagsan yahay ama fiilkiis inuu takhasus ku noqdo fiican waana salaamaya dhamaantiin ciyaarahan hal ogaado waxyaalo badan ka jeedisa dhalinyarada iyo dadka weynba haday tahay muxuu ahaa balwadaha iyo haday tahay qabaylka waa team gooniya waa qabiil gooniya sportu marka hadda dhiirigelinayo cawailku ama waalidku inay carruurta ku dhiirigeliyaan gabagabadii barnaamijka aniga jaamacada waxaan idinkaga tegaynaa anoo ku sugan hotel Cali Jirde magaalada Hargeysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.